isagoo ka hadlayay sanad guurada 18 May oo ku beegan markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku soo hadal qaaday wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Muuse Biixi Cabdi ayaa ku yiri khudbadiisa Soomaaliland waa dal madax bannaan mar walba mowqifkeedu waa mid cad. Soomaaliya iyo Soomaaliland waa laba dal oo daris ah. madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in haddii la rabo in wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland noqdaan kuwa dhab ah ay marka hore shardi tahay in sidii laba dawladeed oo kale loo wada hadlo. sidoo kale waxa uu sheegay Muuse Biixi in wadahadalka labada dhinac ay tahay in laga heshiiyo ajandaha laga wada hadlayo, waxaana uu xusay in mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ay aaminsan yihiin in midnimo oo kaliya laga wada hadli karo, halka uu yiri Soomaaliland ay aaminsan tahay in la kala go'o oo kaliya. waxa uu soo jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in haddii dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadalka ku heshiin waayaan in la tago maxkamadda caalamiga ah si ay u kala saarto, sida uu ku soo hadal qaaday khudbadiisa maanta uu jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo go'aanka shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax bannaanideedu muqaddas lama taabtaan ah sida dastuurku cadaynayo. haddana casrigan aynu maanta joogno ilbaaxnimada adduunka iyo caqliga fayooba waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wada hadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada. in indhaha lagu laaliyo ma aha haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxa kowka oo shardiya horta in la aqoonsay inay yihiin laba dal oo kala waxbana wada hadlayo. ما waxba ka dhageysan mayno talan la gelin mayno cid kasta oo uu yahay oo yiraahda Soomaali way dal waxa weeyaan dagaal ka dhex taagan yahay Soomaaliya dagaal ka dhex taagan yahay la dhex galo Soomaaliya Soomaaliya laba qaran oo qofkii ku dhex xadiray diyaar baanuma walaalo xamar nimanka xamar joogay aan isku Soomaaliyana walaalahay hadday taa indhahooda arkayaan oo waan wada hadlayna intay sareeyeen gobolada waqooyiga iyo magaalo Hiblaayo Saayirna ay kolba calan diyaarad yar oo gaaladeed ha soo sawirayaan heshiimana waa hadlay waxana abuuraysa colaad hor leh iyo caro hor. dhinaca kale waxa uu sheegay in aanay marnaba aqbali doonin in deeqaha caalamka in loo soo mursiyo dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya. marna aqbali mayno gargaar deeq qarar dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya cid kasta oo soo xiriiraysa ama taageero ama talo ama dhaqaale waxaan u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60 midownay 30 sano dagaal iyo rafaad ku jiray 30 sano kala maqnayn waxba aaniga dhaxan meel ka dhac ay tahay ama qaban kareen in la yiraahdo hawshaas xamar ku xidho idinka xamar ka heshiiya. Harajere goobjoog Muqdisho. si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay oo xarakada Al-Shabaab ay weerar ka geystaan ismaamulka Wajeer tan iyo intii ay bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaa salaataada u diyaara gudoomiye ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda 18 May awgeed mudane madaxweyne ku soo dhawow. sanad guurada 29aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland dib uga soo noqotay xorriyaddeeda Soomaaliya inteedii kale ayaa waxa maanta guud ahaanba laga xusay Soomaaliland, balse xuskani wuxuu ka duwanaa xusaskii hore ee Soomaaliland laga xusi jiray kuwaasi oo ahaa kuwa laga xuso goobaha waaweyn iyo fagaarayaasha iyo wadooyinka isuguna soo baxaan dadweynaha halkaasina ay maraan gaadiidka kala duwan ee ciidamada qaranku. xuskan 29 guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland dibadda loo taagay ayaa waxa uu ahaa mid qof walba uu ku xusayo gurigiisa iyo goobtiisa, fagaarayaashana aanay cidna isugu soo bixin, waxaana taasi sabab ah cudurka dunida sida weyn u saameeyay coronavirus. khudbadda madaxweynaha Soomaaliland ee maanta ayaa waxa ay dadweynuhu ka dhageysanayeen kalena socdeen warbaahinta maxalliga ah iyo waliba ta dawladda, halka qaarna ay ka dhageysanayeen codbaahiyaal lagu rakibay wadooyinka waaweyn hareerahooda. munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa ka qayb galay shirgudoonka golayaasha wakiilada iyo guurtida, gudoomiyaha maxkamadda sare, gudoomiyaasha xisbiyada macaaridka UCID iyo wadani, iyo waliba saraakiisha iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi
oo halkaasi ka soo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxa uu madaxweynuhu ugu horreynba ka hadlay islamarkaana hambalyo u diray shacbiga reer Somaliland munaasabadda sanad guurada 29aad ee 18 May. walaalayaal maanta waa bishii May oo maalintii qarannimada waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacbiga Somaliland meel uu joogaba guud iyo dibadba 18 May waa maalintii aynu xaqiijinay qarannimada Somaliland waa maalintii inagoo isku duuban oo aan cidina inaga maqnayn oo gacmaha haysanna ku heshiinay inaynu qaranka dhisno shirkii magaalada Burco 1991 go'aankii ka soo baxay in aynu xorriyadeennii kala soo noqonnay aynu kala baxnay qarannimadeennii midowgii aynu ku hongownay 1960 June iyo talada inaga ka soo goday dadkeena ee aan dibaddeena kaga iman heerka dowladnimada aynu ku gaadhnay walaalayaal markii lagu go'aamiyey Burco qarannimada Somaliland 1991 May waxaa lagu ansixiyey afti dadweyne markii dastuurka la ansixinayay in dastuurka iyo qarannimada madaxa bannaan ay tahay lama taabtaan 2001 bishii May. kale madaxweyne Biixi khudbadiisa ayaa waxa uu ku soo qaatay mucaawanooyinka hay'adaha iyo waliba dalalka caalamku ay bixiyaan waxaanu madaxweynuhu ugu baaqay in ay Somaliland si toos ah u soo gaarsiiyaan balse aan Soomaaliya waxba loogu soo dhiibin. gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Somaliland balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaaraan dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya waa ku celinaya cid kastoo nala soo xiriiraysa ama taageero ama talo ama dhaqaale waxaan u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60kii midownay 30 sano dagaal iyo rafaad ku jiray 30 sano kala maqnayn waxba aaniga dhaxan meel ka dhac ay tahay aan qaban karin in la yiraahdo hawshaas xamar ku xidho idinka xamar ka heshiiya marka ma heshiina xamar caadi waa ruuxda waa dawladda qura qarannimada Soomaaliland diidan ee ka baraysan ninka qarannimada iyo diidan colbaan saarteed hay-adaha sibcada qurba ka dhaxaysa dawladaha waxaan u sheegaynaa annaga Somaliland oo dal gaar u taagan oo dan sirsaanahay cidina xiriisa oo wanaagsan tahay laakiin ma qaadan karno dafna oo aragna xamar baa waxay ka dhaxayaan keeshii. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi khudbadiisani maanta waxa uu kaga hadlay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo go'aanka shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland uu yahay madax bannaanideedu muqaddas lama taabtaan ah sida dastuurku cadaynayo haddana casrigan aynu maanta joogno ilbaaxnimada adduunka iyo caqliga fayooba waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wada hadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada in indhaha laga laariyo ma aha haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxa kowka oo shardiya horta in la aqoonsay inay yihiin laba dal oo kala waxbana wada hadlayo ma waxba ka dhageysan mayno talan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yiraahda Soomaali way dal waxa weeyaan dagaal ka dhex taagan yahay Soomaaliya dagaal ka dhex taagan yahay hal dhex galo Soomaaliya laba qaran oo qofkii ku dhex xadiray diyaar baanu walaalo xamar nimanka xamar joogay aan isku Soomaaliyana walaalahay hadday taa indhahooda arkayaan oo waan wada hadlaynaa intay sareeyeen gobolada waqooyiga iyo magaalo Hiblaayo Saayirna ay kolba calan diyaarad yar oo gaaladeed hag soo sawirayaan heshiinna wada hadlaynaa waxaana abuuraysaa colaad hor leh iyo caro hor cid kasta oo aaminsan labadooda hadalka diyaar baan u nahay iyagana hadday taa aaminsan yihiin waa wada hadlayna marka arrintu sidaa tahay dadku markay isqabtaan marka hore waxay ku heshiiyeen yaa wada hadlaya taa waa sheegay maxaa ku xiga ajandaha lagu hadlaya laga heshiiya ma aqbali karno go-aan ah oo inamada xawlka ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go-ahaynba aynu ka wada hadal si cadoo dheer baan ku sheegaya kala go mooyo wax kala ku wada hadlamayno
gabagabadii munaasabadaasi madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu bilad sharaf iyo mid geesiyaba ku taxay qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliland. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.